warar heshay idaacadda kulmiye ee magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ay xareysay guddiyada doorashada ee heer dowlad goboleed kuwaas oo in badan oo ka mid ah maqan yihiin waxaana la dejiyay Hotel Peace oo ku yaala meel u dhow gegida caalamiga ee Aadan Cabdulle Ismaan Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho. Guddiyadan la xareeyay waxay ka kala yimaadeen maamul goboleedyada labada ah ee Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle, sidaas oo kale waxaa ku jira min 3 xubnood oo ay dowladdu ku darsatay 16 xubnood oo ay labada maamul soo magacaabeen. weli ma jirto cid xaqiijisay ama soo warisay in lagu daray guddiga doorashada ee heer dowlad goboleed ee uu magacaabay ra'iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed, kuwaas oo la sheegay inay matalayaan gobolada waqooyi ee Soomaaliya. sidaas oo kale waxa aan lagu darin guddiga doorashada ee heer dowlad goboleed ee 8 xubnood ah ee uu magacaabay madaxweyne Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor, madaxweynaha Galmudug weeye. waxaana warar heshay idaacadda kulmiye ee magaalada Muqdisho ay sheegayaan inuu dalbaday Qoorqoor in dib loogu dhigo ilaa muddo oo isaga cayimin, laakiin uu sheegay inuu iman doono Muqdisho kadibna oo la kulmi doono madaxda dowladda. waxay wararku sheegayaan in Qoorqoor uu wajahayo cadaadis uga yimid dhinaca mucaaradka, sidaas darteedna uu doonayo inuusan ku degdegin in la xareeyo guddiyadan. waa guddigan ka socda Galmudug oo in badan oo ka mid ah la sheegay inay ku jiraan saraakiil ka tirsan NISA iyo shaqaale dowladeed. waxaa hore uga maqnaa guddiyadan kuwa maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland oo aan la soo magacaabin, waxaana hadda ay xaaladdu u eg tahay in labada guddi oo ka socda Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed oo kaliya la xareeyay, lana sheegay in tababar loo qaban doono. warar soo baxa waxay sheegayaan inaan weli lagu heshiinin in la xareeyo guddiga heer dowlad goboleed ee ka socda gobolada waqooyi ee Mahdi Maxamed Guuleed uu magacaabay. sababtan waxaa lagu sheegayaa in dowladdu ay wajahayso cadaadis dhanka dibadda ah. dhinaca kale waxaa si rasmi ah sheegay inay u shaqo bilaabeen guddiga badbaadada ee doorashada qaranka oo ay magacaabeen golaha midowga musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya. gudoomiye iyo ku-xigeen iyo afhayeen ayay doorteen. waxay sheegayaan inay tegayaan maamul goboleedyada, madaxda dowladdana la kulmi doonaan, ururada bulshada rayidkana la kulmi doonaan. shaqadoodu waxaa weeye oo keliya in dhinacyada ay qusayso ay kala hadlaan in doorasho cadaalada la qabto. Cabdullaahi Telefoon waa afhayeenka guddigaas, waxaan ka wareystay maadaama mucaaradku ay magacaabeen waxa ay qaban karaan. bismillaahir rahmaanir rahiim. raadiyo kulmiye aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin. guddiga badbaadada doorashooyinka qaran ee sanadkan 2020-2021 waa guddi u taagan ilaalinta dastuurka iyo saraynta sharciga oo ah sida dastuurkeenu qorayo in doorashadu noqoto doorasho xor ah, xalaal ah, loo siman yahay. dadka doorashada ka shaqaynayana ay noqdaan dad u siman dhammaan musharaxiinta u tartamaysa xilka ugu sarreeya ee qaran. marka guddigani waa guddi u taagan qodobadaas aan walaal ku sheegay. marka goorma ayaa shaqo gelaysaan? ma sidaanaad ku bilowdeen mise waxba idiin dhiman? ma shaqadu walaal hadda guddi samayn baan ku jirnaa. shalay waxaanu samaynay guddoonka guddiga, berrina waxaanu samayn doonaa guddiyada maaragtay kale, kadibna waxaanu samaysan doonaa hawlo shaqo oo aan bulshada Soomaaliyeed la wadaagi doono kuna xaqiijin doono mabaadi'da iyo ahdaafta cadcad ee aanu samaysanay. dalka waxaa ka jirta dawlad guddi bay magacaawday, waa shaqo bilaabay. guddiyo kale oo heer maamul goboleeda jira oo qaarkood aan maqlayn caaw la xareeyay. marka idinka maxaa weeye waxa aad rabtaa inaad qabataan hadiiba dawlad dalkii ka jirtay shaqaynayso? walaal dawladnimadu markay dawlad dimuqraadi ah tahay sideedaba waxa tiirar lagama maarmaan ayay leedahay. waxaana ka mid ah dawladdu waa sharciyad bay dawlad ku tahay. waxaa kaloo jiro dimuqraadiyaddu ogashahay mucaarado saxda mar walba waxa dawladdu ka gaabiso. annagu waxaan nahay marka dhaqdhaqaaqada inuu saxo waxa dawladdu khalado ama nihin dawlad annagu badii. doorashada Soomaaliya waxaa ku heshiiyay dowladda federaalka ah iyo maamul goboleedyada. haddii ay wax qaldan yihiin cidda saxaysa waa dhexdooda, haddii wax hagaagaana cidda ku ammaana waa ayagii. maadaama aynaan doorashadu iyo heshiiskii la gaaray qayb ka ahayn, soo looma qaadan karo doodiinaan inay tahay mid aan macno lahayn, meelna ku tiirsanayn. maya walaal, marka koowaad horta yaa tartamaya. waxaa tartamaya musharaxiinta annagu aan matalno iyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo hadda jooga. marka dadka u baahan in loo simo doorashada waa musharaxiinta iyo madaxweynaha hadda jira. maamul goboleedyadu iyagu maaha kuwa tartamaya.
sidaa daraaddeed maamul goboleedyada iyo dawladdu way heshiiyeen waxay ku heshiiyeenna way qorteen waxa hadda u baahan in la xaliyo waa musharaxiinta iyo madaxweynaha tartami doona marka howshiina maxamar bay ka socon doontaa mise waa tegaysaan maamul goboleedyada guddigani waa guddi qaran waa guddi soomaaliyeed meel walba oo danta soomaaliyeed ay taalaan tegi doonaa si aan u gaarno ahdaafteeda yaad la kulmaysaan xaggee wax ka bilaabaysaan waxaan la kulmi doonaa dhammaan ururada bulshada rayidka ah waxaan la kulmi doonaa beesha caalamka waxaan la kulmi doonaa maamul goboleedyada waxaanu la kulmi doonaa dawladda naftirkeeda dhammaan quwadaha ay khusayso oo dhan waan la kulmaynaa qolo gooni aan ula kulmayna male maxaad marka kala hadlaysaan waxaan kala hadlaynaa in doorashada la saxo guddiyada wixii khaldan dib loo saxo kalsoonida doorashada la saxo kadibna doorasho la aado hadday dhici weydo in idinla qaabilo oo dawladdii dhexena fursad ka heli weysaan maamul goboleedyadii ka heli weysaan maadaama aydaan ba idi aqoonsanayn oo idi diidan yihiin maxaad qabanaysaan annagu mar walba dastuurka iyo sharciga iyo sarraynta sharciga ayaan aaminsannahay mabaadida dastuurkeenu qoraya ee dimuqraadiyadda iyo xurriyadda iyo sinaantana waan u halgamaynaa qof aan uga gabanaynana ma jirto haddaba dastuurka inaa ilaalisaan oo goshihiin iyo xeerarka dalka uu leeyahay soo ma qurux badnayna dawladda looga dambeeyo doorashada maya dastuurku ma dhahayo dawladda ha looga dambeeyo dastuurkeenu qodobka 111 wuxuu si cad u qeexayaa guddiga doorashooyinka qaranku waa inuu noqdo guddi madax bannaan kana madax bannaan fulinta oo dawladdu ka mid tahay garta marka waxa weeye in dastuurka aad dib u akhrisaan dastuurku madax bannaani ayuu guddigaa ku sheegayaa dawladda inay hoos tagaan ma sheegayo marnaba maxaa isleedaha culaysyo weeye waad la kulmaysaan ama la kulmi kartaan maadaama dalku ay xaalad adag ku jiro doorashadu isdiid badan ka jiro dhinacyadu aanay iswaafaqsaneen mucaarad ka socotaan culaysyada aad diiwaan geliseen maxay yahay oo idinka hor imaan kara walaal annagu waxna waxa weeye waxaan ka hadlayno walaal waa dawladnimadeenna waa dalkeenu inuu horay u socdo waa in kalsoonida la abuuro waa wadan nugul baan nahay dagaal sokee ka soo baxaya dadku wax walbo ay samaynayaan kalsoonidooda in la abuuro weeye dhaqaalaha kalsooni ku dhisan amniga ayaa kalsooni ku dhisan horumarkeena ayaa kalsooni ku dhisan dastuurkana waa in la ilaaliyo sarraynta sharcigana la ilaaliyo isla mar ahaantaana heshiisyadii siday ahaayeen la sameeyo wixii khaldanna la soxo hadda waxa khaldan way caddahay waa dawladda waxa dastuurka ka leexday waa dawladda waxa sharciga ka leexday waa dawladdu hadday sharciga ka leexatana sharciyadeeda ayaa dhaawacmaya cabdullaahi 28 qof ee guddiyada ah ee maamul goboleedyada iyo dawladdii dhexe iyo ururada bulshada rayidka la kulmi doona kana socda siyaasiyiinta musharaxiinta ah idinka ujeedadiina maxaa weeye maxaa raadinaysaan raggaan idin magacaabay waxaanu raadinayna way caddahay tartan ayaa waddanka la aadi doorasho waxaana tartami doona madaxweynaheenna hadda xukunka haya maxamed cabdullaahi farmaajo iyo musharaxiinta aan anagu matalno labadoodu marka waxay u baahan yihiin in loo simo ciyaarta waxaa la rabaa in labaduba ay noqdaan dad u siman tartan dhinac ka raran unbaan diidanahay wax kaloo meesha yaalla ma jiraan laakiin dadku waxay isweydiinayaan musharaxiinta xil bay raadinayaan oo waa musharaxiin madaxweyney rabaa inay noqdaan aan ku dhameeyo maxamed cabdullaahina waa madaxweynihii waddanka isna xil buu raadinayaa idinka shakhsiyadiinu maxaa raadinaysaan walaal annagu xil baan raadinaynaa musharaxiinteenuna xil bay raadinayaan sida maxamed cabdullaahi farmaajo uu rabo mar labaad in lasoo doorto marka labaduba xil bay raadinayaan laakiin waxaa la rabaa xilka la raadinayo in sharcigana la ilaaliyo dastuurkana la ilaaliyo wax laysla ogol yahayna la sameeyo waa intaa walaal idinka shakhsiyadiina idinla hadlaya maxaa raadinaysaan musharaxiinta waan ognahay farmaajo waan ognahay adiga iyo kuwa kula midkaa maxay raadinayaan waxay rabaan in dastuurka iyo sharciga iyo dimuqraadiyadda iyo sinaanta la ilaaliyay raadinayaan intaa unbay raadinayaan idinkoo aanan musharaxiinta iyo mucaaradka la safanina maxaad meel bannaan intaa istaagtaan u raadin weyseen xuquuqdaas dib male wax loo diidayana ma jiro inaan musharaxiintana la jirno sharcigana ilaalino wax diidaya ma jiro at all laakiin waxay ku qurux badan tahay idinkoo meel dhexaad istaaga madaxweynihii la hadla mucaarad la hadla xaqaa'iqa iyo dastuurka cidda dumisa sheega saasaa qurux badan hadda waxaa noo muuqata sideedaba annagu waxaan aaminsannahay marxaladan waxaa u baahan in gacanta la qabto sharciga lagu soo celiyo waa dawladda iyada ayaa xoog isticmaalaysa iyadaa xukunkii haysata iyadaa u baahan in laga celiyo maaragtay wixii sharci darraa ma tihiin marka dadkii celin lahaa
waa nahay muwaadiniin baa nahay dastuurkuna waddankeenu waa dimuqraadiyaduna sideeda waxaa weeye waa power from the people to the people baa la dhahaa quwadda iyo xooggu dadka ayay ka timaadaa dadka ayaana mar walba ka xoog badan dowladda dimuqraadiyadda macnaheeduna waa sidaa maaha dowladdu inay dadka ka xoog badnaato waa caqliyadda dictatorka haddaad aragtid dowlad laga cabsanay oo shacabka ka xoog badan shacabku waa inuu ka xoog badan yahay dowladda lana xisaabtami karo way su-aasha ugu dambayso dalkan wuxuu ku jiray xaalad adag maalinta ka dambaysana waa ka sii daraya eedda ugu weynna waxaa leh oo hadda la eedayaa madaxdii dawladda iyo madaxda mucaaradka armay qurux badan tahay dhallinyaradiina aqoon-yahanka ah inaad ka dhex baxdaan meel dhexa istaagtaan dalkii dadka badbaadada ka shaqaysaan walaalow taas sax maaha waxaa weeye aqoon-yahanka waajib dastuuri ah waajib madani ah waajib islaami ayaa saaran waxaana loo baahan yahay in la soxo wixii khaldan maanta waxa khaldani waa qaabka dawladdu ay u rabtay inay doorasho u qabato xubnaha ay soo magacaabuday ayaa ka leexsan sharciga waxay doonaysaa dawladdu inay degdeg iyo waxaan raalli la isaga ahayn samayso waxaan rabna inaan saxnana waa taas danta dalka iyo dadka ayaana taa ku jirta cabdullaahi telefoon ayuu kaasiya waxa uu afhayeen u yahay guddiga badbaadada doorashooyinka qaranka oo ay magacaabeen golaha midowda musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya.